soo dhawaada waa muuqaal baartuwan ah wiilkan askari ayuu ahaa muddo dheer ayuu wuxuu ka maqnaa wadankiisa iyo hooyadii iyo noloshiisa yani noloshii familigiisa wuxuu dhahay hooyo soo bax xabadiisiina uu la xaragoonayo oo ma gacanta ka watay laakiin waxa soo baxday hooyadii yani oo xaamilo ah wuu yaabay wuxuu dhahay hooyo adiga iyo uur maxaa hooyo xagee uurkan ka imaaday yaa uurkan ku yeelay sidee yani ku dhici kartaa inaad cimrigan adiga aad uur ku yeelato gabadhaas dooda u noqon lahaydaan ku wadaa saacadan maxay tahay uurkan iyo ilmahan xaguu iga soo galay yani wiilkii waxay la noqotay filawaa haddana wuxuu bilaabay dood aan kala joogsilayn yani isagoo ka xun in uu hooyadii oo intaa la eg ay uur yeelato adiga ahaantaada fikradaada haddaan ku weydiin lahaa haddii ay kugu dhici lahayd qisadan si real ah maxaad samayn lahayd ma sida wiilkan uga falceliyey ayaad uga falcelin lahayd mase si ka duwan ayaad uga falcelin lahayd qaybta commentiga please waa codsi insha allah oo yani fikirkaana waa inaan miisaamo fikirka dadweynaha yani kala duwanaanshihiisa iyo qof walba fikirkiisa meeshan wiilkii gabadhii way isxanaajinaysaaba hooyada oo cimrigan ah meeshay uur ku leedahay joogismaba itaali taaganta oo kaalay yaa diiday in hooyada uur yeelato sidee adiga hooyada ku xukumi kartaa adiga hooyo ku dhashay hooyada qalad iyo saxba waxay ku dhacdaba sidee adiga adiga aad miisaantood qaya yani adiga xukun aad ku samayso oo adigu aad u joosgarayso noloshada yaa ku siiyay awoodaas yaa adiga ku siiyay awoodaas soo marka wiilkan uu la xisaabtamayaa sidii cunug oo dhalay ayuu u la xisaabtamayaa hooyoy yani xaalkeedii si tartiib uma weydiin ma uu xaal wareysan yani maxaan maxay yihiin sidee ku dhici karaan hooyo yani qofku markaad waaridkaaga salaantid oo farxadii iyo noloshii iyo waqtiga aad qaataan kadib wixii ka yaabiyay ee dhacay in aad markaa aad weydiiso xaq baad u leedahay oo waa hooyada way ku dhashay laakiin ma aan inaad caawod u malid inaad canaanatid ama ku indhacdayso